waxaan ku guda jirnaa ololaha jardoon ay bisha barakaysan ee Ramadaan maartay gaarsiinayno tabarucaad ay soo gaarsiiyeen dadka walaalahooda ee jilicsan waxaan u raadinaynaa qoys aan hooyo lahayn abuna aad u tabaalisan yahay waxaan loogu eedaamay barakaca digaale salaadii duhur waxaan wali ku guda jirnaa raadinta isla qoyskaas aan weydiinay dhowr qoys oo kale balse ka daalimayno helitaanka iyo raadinta qoyskaasi ay ku waajibaysa sadaqado ee runtii aanu maaragtay u soo anbabaxnay dartii salaamu calaykum adeer ma fiican tahay alxamdulilah hooyo canab waxayna tusaysaa qoyskii aynu raadinaynay aad baan horta way kugu mahadcelinaynaa waa ololaha jardoon la yiraahdo dadka masaakiinta ay aan awoodin bishan barakaysan ee Ramadaan wixii ay ku soomi lahaayeen marka odayga waxaan ku arkay dhakhtarka weyn magac kamaan hayn runtii haybta oo dadkeenu isku garatay lafteedana kamaan hayn runtii laakiin waxaan halkan maartay la ii sheegay inuu degan yahay barakaca digaale marka waxaan si taasawir u leeyahay haddaad garan karto oo isagii aan raadinayaa noqdo oo aad garato waad tilmaami lahayd soo jeedi hooyo waa Axmed waa isagii Soomaa aad baa mahadsantahay maamo haye nagee waxa weeyaan hooyo maadaama aynu isla garanay in Axmed inuu ninka yahay noloshooda carruurtaas waxay u baahan yihiin haweeney maadaama carruurtu shan tahay isla markaana ay yaryar yihiin oo waliba ka u weyni 14 jir wiil yahay noloshooda kaliya dhaqaaleyntooda dharmeerkooda iyo cuntadooda ayaa gacanta ku haya waxa ku haysa dadooda iska tacabsan iyada lafteedu odan yara haye laakiin guriga kulkii hore ku haysay oo laga guursaday haye halkan agtooda ku jirtaa haye iyada gacanta ku haysta oo carruurta lagala xiriiraya wixii nadaafadooda cuntadooda ilaahay taageeradooda laakiin odayga la qaabilsiinaya wixii aynu sidno wixii loo sidoo odayga la qaabilsiinaya waayeel hortiisa caana loogu biyay waaro yaa hooyo duca ka dhacaysa wax uu kala garanaya Axmed maanta wax kala garanaya aad إن شاء الله إلهي وحين كرجينينا إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحين كرجينينا قعنتي سالقو باهي بحاي إنه يسقوا مدي سعين الرحمة كوياقو أنا مالي المالمها كميدة أيام بوقت عسبتال كوين مقالة هرقيسة waxay yaray koox dhaqaatiira si ay la socodsiiyaan xaaladda adeer Axmed runtii aad u tacabsanaa oo tabaala adduun runtii marka ay ka muuqatay waxaan ka qaaday sawirkan aan ku daydeeyay imika isaga waxaan la hadlay dad muxsiniina oo lacag igu soo hagaajiyay aanan ugu wareejiyay isla goobtii marka dhakhtarka weyn gudaheeda adeero waxaan leeyahay ilaahay caafimaad ha siiyo isaga iyo intii muslimiinta aba laakiin runtii daweyn u tagi doonaa waa qof nolol aad u tacabsan ka muuqato waa nin jilicsan maartay xaaskiisii ay geeriyootay wuu hadli doonaa maadaama ila hadlay haddaan looga sii darin sidan ku ogaa maalintii isugu kacay dambeysay dhakhtarka weyn aan ugu tagay ama aan ku arkay aan kula kulmay وكان وكان يدعاني أحمد وأحمد دايدا دير كدب waxaan soo helay hoyga uu ka degan yahay barakaca digaale adeero Axmed oo sidan ma idin sheegay horaantii maartay bisha barakaysan ee Ramadaan aan kula kulmay isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa oo uu yaalay xanuun adeer ma xasuusataa idan idin timid maalin adig iyo laba caruur oo ku hayay oo midiyaynankaaga midna midna boorkii food ninkii loo oran jiray yaa adeeruha food baa adeeruha wakaas hooda la yidhaa maalintii waan isu kaa sheegay baan filayaa inaad waan garan maalin laawin wareegaha dambe maalintan dhacay adeer ilaahay ku caafiyo ugu horeyn amiin ilaahay cayn raxmaha kugu eego amiin ilaahay isaga dadka baahi tiraha ku baahi amiin caafimaad saraan ilaahay ku siiyo amiin taana ilaahay kula koriyo amiin maalintii waxaad ii sheegtay in 2007 ama 2017 tobankii bisha ha ooyin adeer ha ooyin bisha ay hooyadood geeriyootay Allahu naxariisto ayood geeriyootay
dhakhtarkii maalintii aad taalay waxaan kugu yimid qaybta emergency-ga waayay kaa sheegay qolada dhakhaatiiri waan arkay maxaa lagugu qabtay yaa maxaa lagugu qabtay maalintii waxba ilaahay baa dadaal leh oo daryeel leh ilaahay aan raxmaha kugu eego dadku ii diray mooye waxba dhakhtarku ima qabo adeer ilaahay waxaan ka rajaynaya inuu ku caafiyo aamiin carruurtan inuu ilaahay kula koriyo aamiin insha allahu biidni illaahi alkariim aamiin waxba ma noqonaysid waad ka sarreyn doontaa insha allah maanta waxaanu ku wadnay waxaan kugu soo helay dayday dheer runtii oo maan garanayn gurigu meeshuu ka yahay walow maalintii la ii sheegay inaad barakaca digaala degan tahay haddana gurigu meeshuu kasii yahay maan garanaynin markaa dayday dheer kadib baan ku soo helay hooda adeero hooda garays baa la yidhaahdaa haa hooda garays yaa lagu yidhaah hooda garays yaa lagu yidhaah dayday dheer kadib baan ku soo helnay ilaahay horta waan kuu ducaynaynaa ugu horeyn in ilaahay caafimaad ku siiyo cagahaaga dhulka kugu celiyo oo aan raxmo kugu eego gacantiisa lagu baahi baxaaye waxaan ka socdaa maanta oo aan maaragtay deeq raashina kaaga sidaa ololaha la yidhaahdo ajardoon group oo maaragtay bahaystay si ay bisha barakaysan ee rabadaan dadkooda u quudiyaan marka maalintiina lacag yaroo kooban oo ay qaar ka mid ah ajardoon igu soo kin hagaajiyeen baan idinku keenay isbitaalka marka adeer waan kuu ducaynayaa ugu horeyn ilaahay caafiya caafimaad sanaacanaha ku siiyo raashinkii baan kugu wareejin doonaa guriga yaa kula jooga maanta ila joogtaa ma jirto idinkaa soo dhigi doona annagaa soo dejinaynaa baartan baa loo dhigaysan haa ciyaalkii maye malcaamadaha way ku kala maqan yihiin malcaamadaha ayaa ka bixiya carruurta ilaahay baa ka bixiya waar ilaahay cafiya caafimaad sareecanaha ku siiyo raashinka waa kuu ducaynaynaa adeero lama toosin karee raashinka inoo soo deji ku dhe yaa dhakhtarka ka joojiya dawooyinka dhakhtarka ninkiiga gooyey baa yidhi ka daaya dawooyin badan bay dib ii siiyeen waa dhoweyd banaagu inay waagii ii soo qoray soo joojiyey oo kii horaan raacay kii horeeyey kii baasiina yaan raacay kiniga waa iska joojiyey marka wax daawo dhaqameedood isticmaasha iyo waxaasina ma jiraan dawo dhaqameed waxba qaban mayso markaa dawo dhaqameed iyo dawo kale oo dhakhtar qoray midna ma isticmaashin ma isticmaalo kolkii horeba ugu dambeyn adeer axmed waanu helay sidaan idiin sheegnay waanad maqlaysaan inuu hadlo ma awoodo runtii ilaahay subxaana watacaala ugu horeyn adeer axmed waxaan weydiinaynaa inuu cafiya caafimaad sareecana siiyo oo aynu raxmo ku eego carruur yaryar baa jirta oo u weyn yahay 14 jirku oo rajooyin ah sidii imka inoo sheegay malcaamadii bay ku maqan yihiin ma jirta xitaa carruurta malcaamadoodu cid gaar ah ay ku tiirsan tahay sidii adeer axmed inoo sheegay marba qof baa keena oo ilaahay subxaana watacaala ugu soo dhiibaa waxaan weydiiyey su-aalaha yaa ka bixiya carruurta waxbarashada wuxuu ii sheegay oo yidhi ilaahay baa ka bixiya salaam baa mid ka bixisa hay-addaa mid ka bixisa wuxuun bay baraan reer ajardoon iyo bulshooyinka kale ee soomaalida intaba waxaan ugu baaqayaa inay xaaladda adeer axmed ka soo qayb qaataan oo ay maaragtay ajarkaas iyo khayrkaas usoo tartamaan oo ay ugu yaraan carruurta maaragtay waxbarashadooda iyo laga soo caawiyo adeer axmed
adeero raashin baan kugu keenay waxaanu ka keenay qoliyo qurba jooga oo maaragtay aan iyagu dadka wajiyadooda aqoon iyagana la aqoonin laakiin qof walba ilaahay dartiisa sadaqada ula soo baxay أتردون مش كسوق هذا وخيقبت الله وقيل ماشي كسوق بتين أي كسوق هذا وخيقب الله وقيل آخر يعدون كذا إلى يدن بيقوذا هدف مراد كوذا هايلان لا مراد كوذا هايلان sidaasaanu kaga tegaynaa reer axmed waanu u ducaynaynaa reer axmed ilaahay caafimaad sareecana siiyo ula gargaaro ilaahay idamkiisa waa mid ka mid ah carruurta yaryar ee aan hooyada lahayn kana mid ah awlaadda adeer axmed runtii waa maaragtay waa ilmo uu ka mahad sheeganayo waxaanu ka mid yahay afarta awlaadda ah ee aanay cid waxbarashadooda ku tiirsan tahay jirin sidoo adeer axmed inoo sheegay waxaanu saakaloornimadii hore ku soo kalahnay barakaca digaale si aan u soo ogaano xaaladda guud dadka tabaalaysanaya aan awoodin bisha Ramadaan inay ku soomaan wax karaankooda ama aanay shaqaysanin ama aan maartay caafimaad qabinba ololaha Jardoon oo aan qayb ka ahay ayaa waxay iska ururiyeen lacag horaantii bisha Ramadaan si ay dadka masaakiinta ay tabaalaysanaya aan awoodin inay bisha barakaysan ee Ramadaan wax ula baxaan isla markaana maaragtay aan ku haysan awood iyo tabar ay ku soomaan barakaca digaale waxaanu nimi salaadii hore waxaanu daydaynay dhowr qoys oo ah kuwii ku haboona isla ololaha Jardoon dadka uu raadinaya ama fokus gareynaya si uu xaaladooda nololeed ee bisha barakaysan ee Ramadaan wax uga bedelo dayda iyo raadin dheer kadib waanu helnay alxamdulillah rabbil caalamiin hadda saacad waxay ku sii siqaysaa kowdii duhurnimo waxaana loogu eedaamay isla barakaca digaale anagoo nimid aroortii hore waxaan bulshooyinka Soomaalida ay muxsiniinta ah ee khayrka iyo wanaaga jecel halkan fariin uga diraya qof kasta oo xasuuso qof tabaalaysan oo aan bisha barakaysan awoodin wuxuu ku soomo kana qayb qaado sikinkan iyo saacadan imika maskaxdaada iyo xusuustaada intaba u celi kuwa adiga ka jilicsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh